بسم الله الرحمن الرحيم qodobada tabintan aan idinkugu hayo oo dhinacyo badan taabanaysana waxa ka mid noqon doona oo aan ku lafaguri doono faaqidaada caalamka iyo taxliilka diblomaasiyadda madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay xirnaanshaha marinka Hormuz macnaheeda inuu la mid yahay in dalka Iran uu meesha ka baxay taas oo lagu tilmaamay in ay tahay dhaleecayn iyo waliba digniin cusub oo Trump ka imaanaysa madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa goor dhow sheegay madaxweyne Trump in uu soo jeediyay in bog cusub oo xiriir iyo nolol loo abuuro shacabka wadanka Iran iyo Mareykanka markii ugu horeysa maanta waxaa kulan foolka yeeshay wafuudda ka socotay dowladda Iran kuwa Mareykanka iyo waliba dhinacyada dhexdhexaadiyaasha kulan ka dhacay dalka Switzerland wadamada Pakistan iyo Qatar ayaa soo jeedinaya in yaddeelo fiican oo nabad iyo horumar ay ka muuqanayso wada xaajoodka labada dhinac ay isugu yimaadeen madaxweynaha Israel Isaac Herzogna waxa uu sheegay in Mareykanka ay u gudbiyeen walaacooda ku aadan xaaladda gobolka bariga dhexe iyo isbedelada waaweyn ee soo kordhay kulanti wanaagsan mar kale khiyaarta nala socota ay qodobadaas ayaan ku lafagurayaa barnaamijka iyo dhacdooyin kale oo dheeraad ah oo guud ahaantoodba taabanaya wararka gobolka bariga dhexe faaqidaada caalamka iyo waliba sheekooyinkii ugu dambeeyay meel kasta oo aad dunida ka joogtaan soo dhawaada aan ku horeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa goor dhow waxa uu tilmaamay xirnaanshaha marinka istiraatiijiga ee Hormuz inay ka dhigan tahay in dalka Iran uu burburi doono hadalkan oo dadka qaar ay ku macneeyaan inay tahay hanjabaadii ugu horeysay oo culus ee ka soo baxaysa madaxweyne Donald Trump iyadoo dhinaca kalena ay soconayaan dhaqdhaqaaqyo dhinaca diblomaasiyadda ah oo si weyn dhinacyada la leeyahay waa isugu soo dhawaanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu si cad uga digay in ay Iran xirto marinka Hormuz isagoo ku tilmaamay tallaabadaasi mid horseedi karaysa cawaaqib aad u daran oo gaaraya baaliri jiritaanka dalka Iran in uu meesha ka baxo waraysi uu goor u siiyay telefishinka Fox News ayaa waxa uu ku sheegay in habeen hore uu la hadlay mas'uuliyiin Iiraaniyiin ah isla markaana uu uga digay in ay xiraan marinka Hormuz waxana uu tilmaamay in ay noqon doonto arrintaasi mid aan la aqbali doonin waxaan la hadlay mas'uuliyiin Iiraani ah xalay waxaan uga digay in ay xiraan marinka Hormuz ayuu Trump hadalkiisa ku yiri Trump ayaa intaa ku daray in haddii Iiraan ay xirto marinkaasi wada hadallada uga qayb galaya mas'uuliyiinta xitaa aysan dib ugu laaban karin dalkooda taas oo ka dhigan in ay noqon doonaan kuwa meeshooda ku go'doonsan oo madaxda wadanka Iran la beegsan doono madaxweynaha dalka Mareykanku waxa uu sidoo kale sheegay in xaaladda Gaza aysan hadda ahayn caqabadii ugu weyneed isagoo xusay in diiradda ugu weyn ay tahay heshiiska Washington iyo Tehran Hamas haddii ay dhibaato weyn ka geysato Gaza waxaa muhiimadda la saaraya heshiiska wadanka Iran ayuu yiri hasaatee dhaqdhaqaaqa gobonnimo doonka Falastiiniyiinta iyo waliba jiritaanka dowladda Iran ayaa isku xirnaan doona ayuu mar kale Trump hadalkiisa ku yiri haddii Iran ay xirto marinka Hormuz waxaa la baabi'in doonaa dalkooda ayuu Trump ku yiri isagoo aan si gabasho lahayn u hadlay markan waxa uu sidoo kale sheegay haddii heshiis aan laga gaarin Iran in Mareykanku uu qorsheynayo in uu dedejiyo lacagta marinkaasi ee loo yaqaan transit fees oo laga qaadayo buu yiri maraakiibta isticmaasha marinkaasi Hormuz Trump waxa uu intaasi ku daray in Mareykanka uu noqon doono ilaaliyaha marinka Hormuz isla markaana uu qaadi doono qiyaastii 20% dakhliga saliidda lagu gudbiyo marinkaasi ugu dambeyntii Trump waxa uu sheegay in haddii loo baahdo Mareykanka uu si toos ah ula wareegi karayo gacan ku haynta marinka Hormuz iyo lahaanshihiisaba taas oo ku dhisan buu yiri amniga caalamka iyo isu socodka geediga nabadda ee ganacsiga adduunka hadalkan ayaa imaanaya xilli ay si weyn u socdaan dadaalada diblomaasiyadda ee la doonayo xalkama dambaysa in laga gaaro dagaalka sii xoogaysanaya ee ka taagnaa gobolkaasi muddada dheer madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne Trump uu amray in bog cusub oo nololeed iyo xiriir ah loo sameeyo shacabka wadanka Iran isagoo ka amba qaadaya heshiiskii dowladda Iran ay la gaartay Washington kaas oo iminka dhexdhexaadiyaasha ay u arkayaan meel wanaagsan inuu marayo
madaxweyne ku-xigeenka wadanka Mareykanka JD Vance ayaa sheegay in dowladda Mareykanku uu faray madaxweyne Trump maamulkiisa ay bilaabaan bog cusub oo lagu xiriirinayo ama lagu hagaajinayo shacabka Iran iyo xiriirka Mareykanka isagoo carabka ku adkeeyay in maamulka Trump uu go'aan ku gaaray nabad waarta iyo waliba xasiloonida gobolka Bariga Dhexe. Vance waxa uu sheegay in nabaddu aysan weligeed fududayn balse ay u baahan tahay dadaalo iyo waliba wada hadal xoogan oo ujeedadoodu ay tahay in laga soo saaro dhadhaab dhexdiisa iyo dhagaxyo adag. Nabaddu ma ahayn weligeed wax sahlan, waxay u baahan tahay shaqo badan, ayuu yiri madaxweyne Donald Trump. Waxaana naga go'an gobolka Bariga Dhexe in aan ka dhigno meel nabad ah oo aysan dagaal ka socon. Waxa uu xusay in Trump uu xil saaran yahay kooxdiisa in ay ka shaqeeyaan sidii loo gaari lahaa xabad joojin buuxda oo gobolka oo dhan ka hirgasha, isagoo sheegay in ay ku qanacsanayn suurtagalnimada lagu sheegay xaaladda ka taagan gobolkaasi Lubnaan. Vance waxa uu tilmaamay ama uu Trump uu leeyahay buu yiri aragtida Bariga Dhexe ay noqon karayso goob gabi ahaanteedba ka duwan sida uu maanta yahay, isla markaana wajihi karaysa qaab aad u qurux badan oo soo dhaweynteeda la isku halayn karo. madaxweyne Trump waxa uu naga codsaday in aan furno bog cusub oo aan ka bedelno xiriirka aan la leenahay Iran iyo shacabkeeda, ayuu mar kale ku yiri waraysiga uu Vance wariyaasha siiyay. wuxuu intaasi ku daray in wada hadallada hadda bilowday ay yihiin kuwo farsamo oo hal mar aan lagu xaqiijin doonin dhammaan qodobada lagu muransan yahay, balse ay yihiin fursadaha ugu horeeya ee labada dhinac ay si rasmi ah u wada fariistaan oo ay si wada jira u wada hadlaan. sidoo kale Vance waxa uu sheegay in Trump uu doonayo in si joogto ah u bedelo xiriirka Bariga Dhexe, isagoo xusay in hadda uu arko mustaqbal ay dhammaan dalalka gobolku iska kaashan karaan nabad iyo barwaaqo, sida uu hadalkiisa u dhigay. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanku waxa uu sidoo kale bogaadiyay in doorka Qatar iyo Pakistan ay ka gaareen wada hadallada diblomaasiyadda, isagoo sheegay in ay gaareen ra'iisul wasaaraha Qatar door muhiim ah uu ka qaatay dadaalkaasi guud ahaantiiba lagu soo gabagabeynayo xaaladda gobolka Bariga Dhexe iyo mashaakilka ka taagan. markii ugu horeysay maanta waxa ay soo fadhiistay wafuudii Mareykanka iyo Iran iyo waliba dhinacyadii dhexdhexaadinta ka waday xaaladda gobolka Bariga Dhexe ka taagan. arrintan ayaa lagu golleeyahay baa la yiri in lagu soo gabagabeeyo mashaqada iyo xiisadda colaadeed ee muddada dheer ka taagnayd gobolka Bariga Dhexe. mareegta caanka ah ee Axios ayaa ku waramaysa in wafdiyada wada hadalka Mareykanka iyo Iran ay yeesheen kulan toos ah oo saddex geesooda kaas oo ay dhexdhexaadinayeen mas'uuliyiin ka socotay dowladda Qatar. sida lagu sheegay ilo diblomaasiyadeed oo xog ogaal ah, wada hadalka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance iyo xubnaha kale ee wafdiga Mareykanka ayaa la kulmay dhigooda Iran xarunta lagu magacaabo Burgenstock Resort ee ku taala dalka Switzerland. sidoo kale ila xog ogaal ah oo gobolka ku sugan ayaa u sheegay Axios in Mareykanka uu doonayo wareegga koowaad ee wada hadallada in lagu soo gabagabeeyo iyadoo Iran ay casuunta baa la yiri kormeerayaasha qaramada midoobay si ay u bogaadiyaan goobaha nuclearka ama ay u boqdaan goobaha nuclearka oo ay hore u duqeeyeen Mareykanka iyo Israa'iil. warbixintu waxay intaasi ku dartay in taa beddelkeeda Mareykanku uu si gaar ah ugu diyaar garoobay arrimaha nuclearka iyo waliba xalka gaaristiisa, waxaana dowladda Washington ay doonaysaa in uraniumka ay guud ahaantiiba gacanta ku hayaan laga saaro dowladda Iran, isla markaana beddelkeeda lagu sameeyo in dalkaasi uu guud ahaantiiba noqdo meel aan looga baqayn nuclearka, si toosana u soo celiya xiriirka uu la leeyahay dowladda Mareykanka sida Trump iyo wafdigiisuba ay ku doodayaan. ugu dambeyntii madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa ku dhawaaqay in uu u diyaar garoobay gudbinta walaaca ay ka qabaan xaaladda iyo xiisadda gobolka Bariga Dhexe ee la wadaagaya dowladda Mareykanka. maalmihii ugu dambeysay walaaca u dhaxeeya Israa'iil iyo dowladda Mareykanka ayaa aad u sii kordhayay, taasoo meesha ka saaraysay in xiisadda labada dhinac aysan hadda isku afkaar iyo aragtiba ka ahayn. dhinaca kale dowladda Mareykanku waxa ay doonaysaa heshiiska inaanay Israa'iil carqaladayn, iyadoo nidaamka Netanyahu hadda u muuqanayo meel cidla inuu taagan yahay. jeer xitaa madaxda labada dhinac
ay si weyn isaga weerareen warbaahinta. madaxweynaha nidaamka Israel Isaac Herzog ayaa sheegay in wada hadalka u dhaxeeya Israel iyo Mareykanka uu yahay mid lagu qabto albaab. waxa la yiraahdaa wada hadalka u dhaxeeya Israel iyo Mareykanka uu yahay mid u baahan albaabada in loo xiro isla markaana uu noqdo mid daafurnayn oo si daacada loo wada hadlo oo hadalka laga dhigo mid sira oo dhinacyadu ay si weyn isku wareystaan. waraysi uu siiyay telefishinka Fox News, Herzog waxa uu sheegay in Israel ay tahay xulufad dhow oo lagu kalsoonaan karo oo Mareykanka la saaxiib istiraatiiji ah oo yaalla gobolka Bariga Dhexe. waxaan nahay buu yiri xulufad dhow saaxiibo is-aamina oo Mareykanka la shaqeeya si loo hubiyo buu yiri Iran in aysan yeelan awoodda nuclear-ka oo aysan u dhawaan baa yiri samaysashada hub nuclear oo caalamka qatar ku noqon karaya iyo Israel ba sida Herzog uu hadalkiisa u dhigay. madaxweynaha Israel ayaa sidoo kale qiray in aysan jiri karin buu yiri kala duwanaanshiyo aragtiyeed oo u dhaxaysa Washington iyo Tel Aviv, balse uu sheegay arrintaasi in aysan wax u dhimayn xiriirka labada dhinac ee u dhaxeeya waa Tel Aviv iyo Washington sida warbaahinta adduunka ay u faaqidayaan. waxaa dhici karaysa in aan ku kala duwanaano Mareykanka aragtiyo gaar ah, laakiin waxaan aaminsanahay inaan si cad u soo bandhigno walaaciyada sharciyeysan buu yiri ay tahay inaan gabi ahaanba si guud u saxno innaga iyo Mareykanka. hadalka Isaac Herzog oo ah madaxweynaha nidaamka Israel waxa uu ku soo aadayaa xilli xiisada gobolka Bariga Dhexe ay hadda taagan tahay meel aad u adag, isla markaana Iran iyo Mareykanku ay isla jaan qaadeen halka Israelna ay wali ku xiran tahay xarig adag oo Mareykanka uu ku seeteeyay si aanay colaad gobolka Bariga Dhexe uga bilaabin. hase haatee goodinta Trump ka soo baxaysa ee dhinaca Iran ayaa u muuqanaysa mid walaac abuuraysa. waxayse dadka qaar isweydiinayaan haddii Trump uu diido lacagta ay dowladda Iran ay qaadayso ee marinka Hormuz, isaga suuragal ma tahay inuu qaado 20% dhaqaalaha uu doonaya halkaas inuu ka sameeyo? su-aasha u baahan in si weyn la isku weydiiyo.